golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Injineer Faysal Cali Waraabe ay ka gudbiyeen isla markaasina ay u gudbiyeen xiriiryaha guud ee qaranka Soomaaliland sidaasina waxa warbaahinta u sheegay la taliyaha dhinaca sharciga ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Hirade maanta oo ay taariikhdu tahay 1 bishii 7 2020 in golaha wakiiladu uu dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbiga Injineer Faysal Cali Waraabe uu gudbiyay xeelaalinta dacwadaas oo la xiriidha eedo iyo faldambiyeedyo xadgudub ku ah dastuurka iyo xeerarka kale ay ka mid yihiin xeerka ururada iyo nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda iyo xeerka ciqaabta guud oo ku kacay gudoomiyaha xisbiga wicid goluhu maadaama uu yahay golo dastuuri ah oo leh shakhsiyad qaanuuni ah oo waxna uu ku eedeyn karo laguna eedeyn karo maanta waxa uu dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbiga wicid sidaan sheegay u gudbinaya xeelaalinta guud oo ah laanta garsoorka ee awood dawladda inay ku eedeyso faldambiyeedyada aan u aragno in gudoomiyuhu uu ka talaabsaday qodobada dastuuriga ah ay ka mid yihiin qodobka 4 ee dastuurka qodobka 8 ee dastuurka iyo qodobka 39 ee dastuurka dacwad dastuur jabin ah oo ciqaabi ka dhalanayso sidaan u aragno ayaan u gudbinaynaa maxkamadda xeelaalinta guud waxaan kala gudoomiyaha xisbiga wicid ku eedeynayna oo aan u aragnaa inuu faldambiyeed u geystay ka dhan ah ku dhaqmidda iyo hogaansanaanta xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda ee xeer number 14 2011 maadaama uu si toos ah uga horyimi qodobkiisa 2 iyo qodobkiisa 18 oo xisbiyada ka mamnuucaya ama ka reebaya inay faafiyaan warar lid ku ah midnimada iyo wadajirka iyo nabadgelyada guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiiladu waxa uu go'aankiisan iyo dacwadiisan aasaas uga dhigayaa xaqiiqo iyo evidence ay bulshada oo dhammi ay wada ogtahay waxaanu kale oo aanu cadeynaynaa sida gudida diiwaangelinta ururada iyo axsaabta siyaasaddu ay noo xaqiijiyeen kadib markii goluhu la tashi ka sameeyay gudida joogtada ah ee la tashi kala sameysay in aanu gudoomiye wax xasaanad ah oo uu isku difaaco aanu lahayn dabcan waxaan u jeedaa xasaanad aanu lahayn xasaanadu waxa weeyaan qofka xasaanada leh marka dacwad laga oogiyo process buu sharcigu tilmaamaya ama habraac baa loo maraa laakiin gudoomiyuhu wax xasaanada maadaama aanu xeer ku siin waxaanu garawsanay ama aanu xaqiiqsanay isla markaana go'aansanay inaanu dacwad ka dhan ah u gudbino xeelaalinta si ay maxkamaddu ugu ogto dacwadu ugu ogto maxkamadaha awood dawle go'aankaas uu maanta goluhu qaatay sidaas aan idinku wargelinaa bulshada reer Soomaaliland aan kula socodsiinayna qaran ahaan waxa muhiim ah inaynu fahamno ku dhaqanka dastuurka qof kasta oo muwaadin ah ama xil ha hayo ama muwaadin ha ahaado caadi ah ordinary citizen ah waxa waajib ku ah inuu hoggaansamo shuruucda uu dastuurka ugu horeeyo wixii ciqaab ah ka dhalanaysa marka uu xadgudub yimaadana waa in loo sinaado sharciga loo sinaado qof sharciga ka sareeyana ma jiro sidaas daraadeed maadaama gudoomiyaha xisbiga uu yahay mas'uul qaran oo xisbi qaran uu gudoomiye u yahay waa in sida muwaadiniinta kale marka ay xeerka iyo sharciga jabiyaan isaguna uu sharciga u waajaho ciqaabtiisana wala kulmo anagu waxaan ku rajaynayaa laamaha garsoorka gaar ahaan hay'adda u xil saaran oogista dambiyada noocan oo kale xeelaalinta guud inay naga aqbalayso isla markaana ay dacwadda kaga oogayso maxkamadda awood dawle marka waxaan ku rajaynahay in nidaamka sharcigu sareeyo qof kasta oo faldambiyeed lagu eedeeyana uu sharciga hortiisa uu ka soo muuqdo xaqna wuxuu leeyahay inuu istifaaco Faysal aad baa mahadsan Nigib Cabdilaahi Telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa